السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبين wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada casharkeena caawa iyo wada sheekaysi cusub. maanta waxaan ka hadlaynaa wada sheekaysi gaaban oo muhiim ah oo wax badan oo ka tari doono ardayda ama dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhiban barashada luqadda Ingiriiska. aan bilowno markan. Today there was maanta waxaa jiray meeting kulankaas was gathered ay ku soo aruureen the Muqdisho Youth Leagues ururka dhalinyarada reer Muqdisho. Today maanta there was waxaa jiray meeting waa kulankaas was gathered ay ku soo aruureen ma isku arkeen the Muqdisho Youth Leagues dhalinyarada ururka dhalinyarada reer Muqdisho ay isku arkeen. What was being talked about? shirka ama kulanka maxaa looga hadlayay? What was being talked about? kulanka ama shirka maxaa looga hadlayay? It was focused on waxaa diiradda lagu saaray ama looga hadlayay the stability deganaanshaha of the city ee caasimadda mase magaalada Muqdisho and how the youth iyo sida dhalinyarada can take part ay uga qayb qaadan karaan the development horumarka of the country ee waddanka. That is a good idea. taasi waa fikir wanaagsan ama aqli wanaagsan. Has the meeting ended? kulanka ma ku soo dhamaaday ma ku soo ilaaday halkaasi or ama will it still be going on ama wuu sii socon doonaa the next days maalmaha soo socda. There is a good idea. taasi waa fikir wanaagsan. Has the meeting ended? kulanka ma soo dhamaaday or ama will it still be going ama wuu sii socon doonaa the next days maalmaha soo socda. It will continue wuu socon doonaa ama wuu sii socon doonaa kulankaasi 3 consecutive days 3 maalmood oo isku xigta. It kulanka will continue wuu socon doonaa 3 consecutive days 3 maalmood oo isku xigta ayuu socon doonaa if Allah says haddii Ilaahay idmo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.